kooban ee Mongooliskii. aslahan Mongolisku wuxuu dib ugu laabanayaa banaanka hore ee Mongolia ee lama deegaanka Gobi ee ku yaal daafaha waqooyiga Shiinaha, wuxuuna ahaa qabaa'il Mongoli ah oo dhinacyada la degaan qabaa'ilo kale oo ka dhex jiray dagaalo iyo weliba isku horimaadyo, gaar ahaan qabaa'ilkii la oran jiray Tatarkii xilligaa jiray. waxayna ahaayeen qabaa'ilo dhammaantood caabudi jiray meerayaasha iyo weliba sanabyada. inkastoo ay jireen isku horimaadyo qabaa'il ah, balse waxay awood u yeesheen inay midoobaan oo aasaan boqortooyadii ugu weyneyd taariikhda ahaan iyo weliba waqti gaaban. waxayna ku faaftay boqortooyadii Mongolis laga soo bilaabo Serbiya badda Baltiga ee waqooyiga ilaa xuduudaha waqooyi ee jasiirada Carbeed iyo weliba Lafanta iyo Falastiin ilaa koonfurta laga soo bilaabo jasiiradihii Japan iyo weliba badweyntii Pacifiga, kuwaas oo ku sii jiray isla markaana sii waday ilaa galbeedka Yurub. taariikhyahanadu waxay cadeeyeen in Mongoliska loo qaybiyay 6 qabaa'il oo waaweyn kadib markii uu xukunka la wareegay boqorkii la oran jiray Genghis Khan. wuxuuna awood u yeeshay in uu ballaariyo boqortooyadiisii isla markaana u qaybiyo dhammaan wiilashiisa oo iyadoona lagu cadeeyay sharciga la oran jiray al-Yasaaq, sharciga Mongoliska.